aynu ka hormarnay deegaanka ceelbaraftan iyo shalay waxaa laga soo warinayay xaalado kacsanaan ah iyo hub uruursi u dhexeeya ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka oo dhinaca ah ururka al-shabaab. xogaha la helayo waxay muujinayeen in saakay gudaha ay u galeen gudaha deegaanka ceelbaraf ugu yaraan 400 oo dagaalyahan oo ka tirsan ururka al-shabaab, kuwaasi oo la sheegay inay isku fidiyeen deegaanka ayna la wareegeen saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidamadii hubanta ahaa. ciidamada hubanta ayaa sidoo kale xoga soo baxaya waxay muujinayaan in halkaasi ay ka tageen islamarkaana deegaan duleedka ka ah ay ku sugan yihiin. gudoomiyaha deegaanka oo si kooban oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Muqdisho wuxuu xaqiijiyay inay isaga baxeen deegaanka islamarkaana qorshe military iyo xeelad ay tahay oo ay dib ugu soo laaban doonaan. gelinkii dambe ee maanta diyaarado nooca qumaatiga u kaca ee helicopteriska ayaa waxaa duqeymo ay la dhacayeen gudaha deegaanka ceelbaraf iyo agagaarkiisa, iyadoo duqeymahaas laga cabsi qabo in dad u badan shacab waxyeelo ay kasoo gaarto. dad goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in duqeynta si toos ah loogu beegsanayay fariisimo al-shabaab ay ka sameysteen gudaha ceelbaraf. ma jirto cid xaqiijin karta khasaaraha rasmiga ah ee halkaas ka dhashay marka loo eego duqeymihii galankii dambe ee maanta halkaas ka bilowday. dhinaca kale haddii aynu eegno dowladda Burundi waxay shaacisay tirada askartii looga dilay halkaas iyo weliba waxay qirtay in ay jiraan ciidamo nolosha ay ku qabsadeen ururka al-shabaab. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa ka hadlay weerarkii ay kooxda al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka Hirshabelle. saldhigga ayaa waxaa dagaal xoogan oo lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa Burundi ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS iyo ururka al-shabaab uu ku dhex maray halkaas, iyadoo weerarka uu ku bilowday qaraxyo lagu soo xiray baabuur islamarkaana lagu jebiyey albaabka hore ee laga galo saldhiggaasi military. sarkaal la hadlay wakaaladda wararka ee AFP oo ka tirsan ciidamada Burundi ee ATMIS ka tirsan ayaa sheegay in weerarkaas ciidamada Burundi ay ku waayeen 30 askari halka uu sheegay in dhaawaca uu gaarayo ilaa iyo 20. sidoo kale sarkaalkan ayaa sheegay in nolol iyo geeri lagu laayahay tobaneeyo kale, waxayna xogta tilmaamaysaa in kooxda al-shabaab ay nolosha ku qabteen ilaa iyo 15 askari oo ka tirsan ciidanka Burundi. ciidamada amisom ayaa u diray diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah deegaanka kuwa oo tan iyo gelinkii dambe ee maanta weeraro sameynayay, laakiin lama oga weerarada iyo waxa ay soo kordhiyeen iyo khasaaraha waxa uu la egyahay. warar la helayo ayaa sheegaya in ku dhawaad 400 oo dagaalyahan oo ka tirsan ururka al-shabaab ay ka qayb qaateen weerarkii ka dhacay halkaasi, islamarkaana waxaan weli aan war rasmi ah soo saarin dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya taliskooda ciidanka xoogga dalka oo dagaalka qayb ka ahaa.